boqol iyo konton dhibaato igu sameeyay TikTok-gayga 500 kun marayu iga xiray intaas uu dhibaateynayay wax walba igu sameeyay ninkaas waa igu daawanayseen kulligiina kuraas baa ku wada fadhideen except Axmed Food Cabdi hadalka markuu inta marayo maanta shalay aniga sharaftayda haduu u socday oo basra buufsa ay sharaftayda u socotay sharaftayda dhulkay la gashay hadday u socotay maanta reerkayga inay dumisana ma dumin karto aniga ninka i qaba horta sidiisaba waa libaaxna wuxuu doonu sameeyaa oo iguma diri karto anu nin absama oo dhaqan leh oo ogaadeena ba i qaba oo coolyahana nin ay dhinaciisa soo mari karta basra ama hawaysan karta ma nin ay hooskiisa ka baqda aniga i qaba laakiin labada gacmood iyo labada lugood buu ka xiran yahay because waa fanaan shanta Soomaaliyeed u heesa marka ilaahay amarkiis anagu waxaan dad social media aan caadi u isticmaala anu comedian baa social media aan caadi baa u isticmaala laakiin dadka fanaaniinta waxyaabo badan ay ka dhowrsadaan baa jira oo anu aan ka dhowrsanin sida hadda qabiilkayga oo kale anu qabiilkayga every second baa ku faaraa laakiinse dadku qabiilada qof fanaan intuu soo fariisto inkastoo fanaaniinta hawiye ay sameeyaan oo gabadhan haddadan fanaanada oo every day ay soo saarto saacad habar gidinina ahay hees ay soo saarto every day oo fanaaniinta hawiye official u tahay fanaaniintu daarad waa xishoodan qabiilna kuma faanaan ma beentayba على كل حال yesterday hadii loo socday aniga sugmay aan dhamay hadalkayga dhamaysana waa idin ka digaa markaas hadla wax artaan sheega على كل حال waxa idin sheegaya yesterday hadii aniga sharafkayga loo socday dhulka la galay qabiilkayga in la bahdila hadii loo socday 10 sano haday sii joogan ma jeerteen gabdhahooda la guursan mayo midgay la mid yihiin maanta midgaha bay la mid yihiin midgaana waa qofkii xun oo baktiga cuna baktiga u xalaala maanta ninka ma jeerteen because gabadhiisa inta lagu horcaayo intuu dhaha gifti loo diraa diyaarada diracyada ila xiran yihiin maanta ani ragii difaaci lahaa duruucda ila xirteen maxaa ku soo haray waxa kaliya oo haray waxay tahay ragga daaroodo ani meesha ila saaran ninkan warsan gali iyo wiilkan kaleeto in adeerkay ila saaran oo ay iskeen bari doontaan aqoonta u lahayn iyo abtigay murtimaal maanta waxa idin sheegaya ilaah baan ku dhaartay shalay aniga sharaftayda loo socday laakiin maanta xiniyihiina lagu ciyaaraya dhin xiniyihiina saad loo boodbootinaya maanta waxa because ninka waa i bakti jiiday wuu igu soo laabtay second laabku igu soo laabtay in adeer xiniyihiina ku ciyaaraya adinku diyaarada adinku hadal idinka raadinaya ani ima doonayo this time I'm sorry uma jawaabi kar this time aniga ima rabo adinku idin raadinaya waana idinka baxay hadal أبو